Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Akhyaarta kusoo dhawaada channelkan waxaan ugu talagalnay inta badan inaan uga hadalno waxbarashada iyo cilmi baarista iyo waxyaalaha kala duwan sida buugaagta iyo waxyaalaha noocaasa. Laakiin hadda weli waxaan rabnaa inaan taxanihii meesha kasii wado oo aan bilownay taxanahaas oo ku saabsanaa sida ugu fiican ee wax loo barto. Qaybtan waxa uu videogan ku saabsan yahay ma doonaysaa cashar aad mar baratay inaadan hilmaamin. Waxaan rabaa inaan laba cilmi baarisna aan uga hadlo meeshan oo aan qaadaa dhigo sida ugu wanaagsan oo aad casharka mar aad barato oo aad u sii xejin karto xitaa marka imtixaanaadka aad gasho kadib. Sidii aan qaybtii hore oo kale oo aan videogii khulaasada aan uga soo hadlay, qaybtan waxaan xooga saarayaa waxa la dhaho xusuusnaashaha in aad soo xusuusatid wax. Afka qalaad waxaa lagu dhahaa active recall ama retrieval quizzing waxyaalaha noocaas intaasba waa la wada dhahaa. Laakiin qaybta aan ula jeedo meeshan oo aan rabo inaan kor istaago waxa waaye markaa wax baranaysid saddex wax bay ka kooban tahay. Midda koowaad waxa waaye waxaan way kugu cusub yihiin markaasaa lagu baray ama akhrisay. Cabaar kadib waa hilmaameysaa. Haddii aad juhdi iyo waqti geliso oo aad akhriso oo dadaal badan aad geliso waa soo xusuusnaan kartaa. Tusaale ahaan qofka maanta computer isticmaala copy paste oo kale ama control C iyo control V waa la baray. Haddii maalinkii laguu sheegay oo lagu baray aadan sii practice garayn oo aad meesha uga tegi lahayd ma xusuusnaanaysid maxaa copy la dhahaa maxaa paste la dhahaa. Stage ugu horeeyay barashay ahayd si aad uga hortagto waqti hore oo kale markaan kasoo hadlayni forgetting curve-ka oo aan cashar hore ku sharaxnay. Waxa uga hortagi kartaa in aad wixii horta marka hore inaad ka istaagto oo buug isku laabto oo aad dib usoo xusuusato aad dhahdid maxaa loo isticmaalay control C copy control V paste. Waa tusaalaha ugu yar ee ugu hooseeya. Marka aad rabtid cashar cusub oo kale oo aad baratid waxa ugu horeeya aad sameynaysid waa inay noqotaa xitaa lecture-ka marka aad kasoo baxdid 5 daqiiqo 6 daqiiqo naftaada si waxaa dhahdaa muxuu ahaa casharka maanta muxuu ka koobnaa. Cinwaankiisa horta ka bilow inaad soo xusuusatid waayo cinwaanka base uu ku yahay waa meesha wax ka bilaabaysa. haddaadan cinwaankii iyo wixii aadan marka horeba aadan aqoon ama aadan soo xusuusin oo meelo kale ku maqneyd waa wareer. Waa inaad ciwaankii taqaanid kadibna aad ku dhistid ciwaanada yaryar ee casharkaas ku jiray. Kadib fikradaha ugu waaweyn ee casharkaas ku jiray isku day inaad madaxaaga kasoo xasuusto. Dadka qaar waxay sameeyaan indhaha isku qabtaan markay rabaan inay wax aad usoo xusuustaan. Dadka qaar meel bay ayagoo qof kale ama derbi fiirinaya isku dayaan inay wixii dhan soo xusuustaan. Adiga midii aad muxuu ahaa kuu fiican isticmaal. Isku day inaad maskaxdaada ka shaqaysiisid xusuustaas oo maskaxdaada aad ka shaqaysiisid. waa arki doonaa cilmi baarista aan gadaal uga hadli doono waxay kaa saacidi doontaa in marka dambe oo aad ku celinaysid ay kaaga sii fududaato hadhow haddaa imtixaanku galay sidoo kale. Haddii xusuustaas maalinkaas casharka aad qaadato aad samaysid 3 cisho mise 2 cisho kadib haddana aad samaysid inaad meel fariisatid PowerPoint presentationka aad furtid oo objectiveska qaybta ugu horeysa objectiveskaas su'aalo ka dhigi kartaa oo isweydiin kartaa macalinka muxuu ka waday tan maxaa ka xusuusan kartaa madaxaaga xusuustaada dib u celi. Waxbaa kugu soo dhacdhacaya hala yaabin inay muxuu ahaa xitaa wax khaldan yihiin ama wax saxan yihiin ama meelo kale ay kaaga soo dhacayaan. Isku day informationkaas inaad marka ugu horeysa dhan madaxaaga kasoo wada saartid. Waxay kaa saacidaysaa intaas kadib marka hadhow casharka aad dib u fiirinaysid oo aad u akhrinaysid aad u muraajaceynaysid wax badan baa aad haynaysaa oo aadan hilmaami doonin. Isku day haddaadan hore u samayn jirin haddii aad samaysid casharada ama PowerPoint presentationada buugaagta jabtarada aad akhrisid dambe ma hilmaami doontid. Inta ugu badan aad baa u xasuusnaan doontaa ilaa imtixaanaadkaaga xitaa markaad dhamaysid kadib. Waxaa kaloo isticmaali kartaa si aad xusuustaada u kordhisid. Marka ugu horeysa buug isku laab soo xusuuso. Marka labaad waxaad samayn kartaa inaad flashcards aad qortid oo warqado yaryar oo warqadaha kala reesan oo kale dhinacna aad ku qortid key idea-da gediska kalena aad ku qortid
ideyadaas fikirka uu xambaarsan yahay oo hadallada adiga gacantaada ku qortay ah aanan ahayn xitaa kii buugga ku qornaa waxay kaa saacidayaan ereyada aadi curinaysid oo aad la imaanaysid inay hadhow ay ka wanaagsanaadaan xitaa aa kula soo qaban kartid kuwii casharka oo dhan oo dhammaystiran ama baaragrafya ama basejiya dhan oo dhammaystiran ah sidoo kale waxaa jira mind map aa isticmaali kartaa mind map waxa waaye inaad warqad cad soo qaadatid oo aad dhexda aad ku sawirtid fikirka weyn ee casharkaas mawduucaas uu ka kooban yahay fallaare dhinacyada aa uga bixisid casharkaas qaybihiisa kala dhan oo xasuusitid oo ideyada waaweyn ama fikradaha waaweyn ah tan ugu sii wanaagsan waxa waaye saaxiibka oo casharka uu ku adag yahay waxaa dhahdaa saaxiib casharkii shalay ma fahantay hadalkuuga bilow adiga oonan rabin inaad ka dhigtid inaad wax baraysid markaasuu waxaa laga yaabaa nin ani mabala soconinba aad adigana usoo turturtid aad dhahdi ha macalinka kanuu ka hadlay kanuu ka hadlay kanuu ka hadlay kanuu kana waxay kaa anficaysaa taas inaa isaga keliya wax baraysid maaha in adiga naftaada aad soo xusuusinaysid oo hadhowna qofka haddaa mar wax bartid waxay la micno tahay inaa adi 2 mar baratay oo kale ma hilmaamaysid marka aan qaybta cilmi baarista aan u gudbo cilmi baaris waxaa jirta mar aad u hore loo sameeyey oo 1978 ahayd cilmi baaristan waxay isbarbar dhigaysay 2 qaybood labada qaybood oo kale ahayd qofka sameeya inuu wax xifdiyo oo crammingka waxa la dhaho iyo groupkan markaas oo aad u cusbaa oo ahayd in oo qofku isaga naftiisa tijaabiyo uu isxusuusiyo uu isweydiiyo su'aalo iska weydiiyo casharkii markuu casharka saas u qaatabo saa hadda aragtiin chatkan iga muuqda cilmi baaristan waxa aad loola yaaba ee noqotay 2 cisho kadib labadii group markii laisku keenay groupkii imtixaanka ama casharka xifdiyey iyo groupkii markay wax akhrinayaan iyaga istijaabin jiray inay buug isku laabaan dib isku soo xusuusin jiray oo dhihi jiray maxaa ka xusuusataa maxaa kugu cusub maxaa ku dhibaayo oo aad u fahansaneen labadaas group ay u kala qaybsanayeen groupka kale labada imtixaan marka labada group marka imtixaanaadka laga qaaday groupka oo xifdiska sameeyey 50% 2 cisho kadib waa hilmaameen waxay xifdiyeen groupka kale iyaga nafsadooda tijaabiye 2 cisho kadib 13% keli ah ayay hilmaameen fiiriya 50% hilmaam ah iyo 13% hilmaam ah xitaa iskuma dhow aad bay u kala fog yihiin crammingka ama xifdiska waxaa loogu talagalay waqti mucayan ah oo kooban maalin 2 maalin inta badan u fiirso dadka markay xifdinayaan waxay sameeyaan inay xifdiyaan book intay soo highlight gareeyeen ama noteska ay qaateen saacadaha imtixaanka ka horeeya siiba 24 saacadood ama 48 saacadood wax ka yar 36 saacadood ugu badnaan wax ka yar inta ay noteska iyo bookga iyo waxa ay soo akhriyeen ee aad u xasuustaan imtixaanaadka qoraan laakiin qofkan isoo tijaabiyey hadduu tijaabadan uu xitaa sameeyey dhowr mar oo kala duwan kasoo qaad casharka marka aa qaadatay 5 daqiiqo inaad fariisatay oo dib aa isku xasuusisay oo adigoo aa isku imtixaantay 3 cisho kadib aad meel fariisatay oo aad objectiveska marka aa furtay aad dib isku weydiisay aa soo xusuusatay kadibna aa casharka dhan wada kormartay haddaa 7 cisho ama 8 cisho kadib sidoo kale samaysid 70% 60% waa xusuusnaanaysaa jabtarkaas akhrisa maalinka imtixaanka tijaabi haddaa arday tahay waxaa sameysaa marka ugu horeysa uu macalinka casharka maalinkaas bixiyo haddii aadan fadhigaas ku sameynin inaa casharka wixii muhiimka ah aad soo xusuusatid guriga markaad tagtid fariiso fur slideka ugu horeeya ku istaag maxaa ka xusuusan kartaa slideyada kale dhan adoona furin buug iyo qalin qaado qor wax badanaa ka dareemaysaa haddii marka ugu horeeya way kugu adkaanaysaa waayo nafsadaada maskaxdaada maada barin in ay khaanadaheeda wax kala soo bixi karto waxaa barta un keliya inay wax ku keediso u fiirso dadka salaada markay tukanayaan faatixada iyo inta waduxaa ka hoose ilaa birabinas dadka dhan korkay ka wada hayaan sababta waxaa qof walba shan salaadooda ku tukadaa maalin walba
okay waayo mar walba waa la soo baxaysaa oo waa akhrinaysaa adoon xitaa maskaxdaada si fiican u joogin xitaa waa akhrin kartaa waa taqaanaa aadaa u taqaanaa haddaa retrievalka aad isticmaashid oo aad naftaada tijaabinta xusuusinta aad samaysid xusuusintaas waxay kaa saacidaysaa in aad memorygaaga uu adkaado oo wax badan aad ku heeso cilmi baaris ayadana markii ka dambeysa la sameeyey oo xiiso lahayd iyadana waxaa ka mid ahayd laba group oo kala duwan oo group A iyo group B ah laba mar oo kala duwan aan isbarbar dhigaynaa qaybta bidixda ku xiga oo group A ah iyo qaybta midigta ah oo shaashada niiga muuqato oo group B ah group A laba imtixaan ay sameeyeen group B na hal imtixaan oo testi ah ay sameeyeen groupka oo A waxaa lagu imtixaanay sheeko ay ku jireen 60 shay oo aad u kala duwan 60kaas shay isla maalinkiiba group A waa lagu imtixaanay imtixaankaas maalinkaas laga qaaday waxay heleen boqolkiiba 53 waa imtixaanka koowaad isbuuc kadib group A loo wacay si haddana loogu imtixaano 60kii shay waxay heleen markaan boqolkiiba 39 group B casharkii iyo isla materialkii group A la siiyey laakiin lama oranin imtixaan usoo fariista u fiirso waa la fasaxay waxa la wixiina soo akhrista isbuuc kadibna iskuaya keena isbuuc kadib markay imaadeen ay imtixaanka u fariisteen waa iyaga oo soo akhriyey qaarkood soo xifdiyey boqolkiiba 28 ay keeneen u fiirso labada group hadda yaa aad u wanaagsan group A laba imtixaan unbuu qofkan sameeyey marka oo sheekadan loo akhriyey oo 60kii shay oo kala duwanaa isla markii sheekada la akhriyey la weydiiyey boqolkiiba 53 ay soo xasuusteen isla markiiba isbuuc kadib markii la imtixaanay hoos bay usoo dhaceen boqolkiiba 39 ay xusuustaan laakiin groupka kale imtixaan ma gelin waxaa la casharadiina wixiina soo diyaarsaday isbuuc kadib nuskaya keena boqolkiiba 28 ay keeneen groupkee kula fiican group A boqolkiiba 11 dheeraaday haystaan iyaga oona juhdi badan iyo waqti dheeraada ka bixin oo aanan ahayn waqtiga uu imtixaanka ku galayay uu naftiisana uu weydiinayo uu is imtixaanayay qaybtan cilmi baarisyo badanaa laga sameeyey baaritaano dheeraada waa ka samayn kartaan waa muxuu ahaa waa sheeko really aad xiiso u leh aniga markii aan fahmay waxaan aad u jeclaystay inaan la usoo bandhigo ardayda Soomaaliyeed waayo wax badan bay ka faa'iideysan karaan qof walba iyo waxay ku xiran tahay in isaga suu hadda wax u barto uu u diyaariyo xitaa asxaabta kale ee waxbarashada aad ugu wanaagsan haddaa weydiisid waxaa laga yaabaa inay qaarkood isticmaalaan sidaan balse laakiin aynan u aqoonin iyo cilmi baarisyadan iyo waxaan aynan garanaynin kasoo qaad hadda qofka markuu xitaa wax cusub oo ku adag u sameynayo markuu uu kor u akhriyo iyo markuu uu hoos u akhriyo way kala duwan yihiin markuu kor u akhriyo oo erayadii uu kor u qaado isaga ismaqalsiiyo way ka xamaasad fiican tahay dareemadaada dhan wuu kicinayaa sensaska aa isticmaalaysid aa badisay oo inaa hadal ah arag ah maqal wax dhana iskugu dartay okay dadka qaara waxaa laga yaabaa inay yihiin visual learners qof keliya ah inuu arko wax qof dadka qaar waxa weeye dhageysiga dadka qaar waxay ka helaan inay maqalka iyo sawirka laiskugu daro adiga midkaa tahay adaa is yaqaana ama haddaadan aqoonin waa baran doontaa isku wad labadaba saddexdooda intaba isku wad kadib meeshii adiga aad u badatid oo kuu fiican hore ugu soco laakiin ha ku taagnaanin un maalin walba inaa highlighter soo gadatid oo buugga meel walba aad ka xariiqdid oo qayb walba aad xariiqdid waa samayn kartaa qaybo oo xariiqdo oo aad xariiqaas aa ugu talagasho laakiin hadhow inaad gadaal aad u reference garayso oo laakiin haddaa buugga dhan wada xariiqda hadhow maxaa akhrinaysaa wax akhrisidba malahanba aad iyo aad aa umahadsantiin akhyaarta isku day hadda inaad videogan joojisid oo aad dib u xasuusatid
waxyaalaha aan ka soo hadlay maxay ahaayeen. Xusuusta haddaba ku bilow. Markaan dhahay xusuusinta 4 qaybood oo aad samayn kartidaa jira. Waxaa ka mid ahaa horta marka hore joogso, buugga isku laab, isxasuusi. Marka labaad waxaad samayn kartaa warqadahan flash cardska la dhaho isticmaal. Haddii aad isticmaali kartid digital toolska ama mobile flash cardsna way kasii wanaagsan tahay. Waxaan dhahoo kale midka saddexaad muxuu ahaa mind map waxaa samaynaysaa fikradda weyn aad warqadda dhexdeeda ku qoraysaa, kadibna dhinacyada falaaraha ka bixinaysaa. Falaarahaasna waxaa ku qoraysaa fikradaha ka farcama qaybtaas. Tan ugu dambeysay, qof saaxiibka ah adoo u sheekeynaya camal casharkii ugu sharax. Waxay la mid noqonaysaa adoo qof waxbaray, qofna markaa waxbartid adoo 2 mar waxbartay ee la mid tahay. ikhyaarta aad u mahadsantihiin. Haddii aad ka heshay fiidiyoyadan kale asxaabtaada la share garee, ardayda la share garee. Anigana waxaan isku dayi doonaa in aan muxuu ahaa fiidiyoyo noocan oo kale ah inaan duubo si ay ardayda uga faa'iidaystaan insha Allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.